waxaanu ku wareejinaynaa wasiirada dowladda, waxaanu ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha, waxaanu codsanaynaa amnigayaga iyo xifdigayaga iyo wanaagayaga iyo nabadayada in dowladdu la wareegto waxa aan hayno oo hubana ay nagala wareegto. wabilaahi tawfiiq. annagoo hubkaas haysanaa dhibaato badan noo timid. hubkaan marka waxaan isaga difaacaynay cid kasta oo cadow ah oo na soo hajoonta. waxaan dowladda ugu wareejinaynaa dowladdu inay amnigayaga ay ballan qaado baan ugu wareejinaynaa. ilaahay baa ballanqaadka leh. gaadiidkan iyo ciidankii saarnaa waa 11 gaari oo noocyada kala gedisan oo hubka wata, gaadiid fara badan oo aan qaran maahane munaasabana leh. waxaan galabtay munaasabadan gaadiidkan iyo ciidan 500 askari ah ku wareejinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka amniga iyo mudnaanta taliyaasha ciidamada iyo dhammaan qaranka qaybihiisa kala gedisan, annagoo ah mas'uuliyiintii iyo wasiiradii degmada Xeraale iyo sanataradii iyo xildhibaanadoodii. ku soo dhawaada ra'iisul wasaare iyo wafdigaaga. halkan waxaa igu soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo sanatarkii aqalka sare. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inay nagu soo wareejiyeen baabuurtaas ciidamada ah oo gaashaaman oo ilaa beebayaashu ay ku jiraan oo qoryo saaran yihiin, oo ay yiraahdeen waxaan u soo milkiyeynay dowladda Soomaaliyeed iyaga iyo ciidankii saarnaaba. dowladda Soomaaliyeedna ay ka gudoontay. halkan oon faraayo taliyaha xoogga inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu soo diro dad una yimaado gawaaridan. sidoo kale ciidanka halkan jooga in la qarameeyo, la diiwaan geliyo, tababarkii u baahan yihiin la siiyo. magaaladan amnigeeda ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kala duwan ay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgalaan. ammaanadan waxaa idin imaan doona wafdi ka socda taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed. inta uu ka imaanayaan waa ku simaysaan. laakiin halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro shacabka Soomaaliyeed. aan iraahdo waxa meeshan ka muuqda maanta waa tusaale ah dowladnimadii Soomaaliyeed oo hana qaaday. tusaale mudan in tallaabada walaalaha reer Xeraale ay qaadeen lagu daydo. dowladduna ay ballan qaado inay dadka reer Xeraale oo soo hibeeyay hubkii ay haysteen in dowladdu ay amnigooda ka shaqeyso. dalkeenoo dhami intaas keliya raba dowladdoo la aamino iyo dowladdoo dadkeeda aamin u noqota. hubka ay dowladdu hayso oo shacabka Soomaaliyeed lagu difaaco, cadowgana looga difaaco, iyo cid walba oo shacab oo hub haysa inay ogaato inaan shacab hub hay karin ee lagu soo wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan u soconnay nabadeyn, waxaan u soconnay dib u dhis dowlad goboleedka Galmudug, waxaan u soconnay isu soo dhaweyn. hadda waxaan ka nimid Huurshe, waxaana joognaa Xeraale, halkaasoo xurguf ay ka jirto oo aan rabno in aan xal degdeg u helno waliba intaan halkan joogno. waa idinku ammaanayaa tallaabada geesinimada la wada qaadeen, waana tii xaqiijin lahayd tallaabooyinka ugu horreeyay oo qarannimada Soomaaliya. waa mahadsantihiin.